maanta Somaliland ma waxaad ka xanaaqsan tihiin in la idin dhaho maamul ka tirsan Soomaaliya tihiin haddaan ku leeyahay Somaliland waa gobol gobolada Soomaaliya ka mid ah ma ka weynaanaysiin miya in cunug yaro fanaana aad xirtaan cunug yaro tiktoker aad xirtaan mid yaro youtuber aad xirtaan mid yaro meelaha ka soo qili aad xabsiga u taxabtaan oo liinta asiisaan Somaliland maanta mahankiini iyo dawladnimadiini iyo nidaamkiini in cunugan yarka u jeedaan TikTok uu ku qayliyo ama TikTok uu ka yiraahdo ma imaan kartid war wallahi inaad imanayn oo billahi inaad imanayn oo tallahi inaad imanayn qof kale oo banaanka ka imaanay in uu saas ku dhaho sidaas ma hadda waxa rabtay in aad dhahdaan dawladnimad aad ku raadinayna oo aqoonsigan ku raadinayna oo adduunka inuu ictiraafaan rabnaa السلام عليكم صاحب يال waxaan ahay Mr. Kelmatani oo idin la xil kasto inta wanaagsan halka aad naga daawanaysan waa Facebook page ka ama YouTube ka Mr. Kelmatani ayaantan baraha bulshada waxa aad loo wareejinayaa ama dad kale ay wareejinayaan arinta Zeki Somali iyo Somaliland u dhaxayso Zeki Somali wuxuu soo duubay video wuxuuna sheegay in loo diiday Hargeysa ina faraha iga qaadaan oo si nabad ah ku imaado maadaama dad saaxiibadii soo baxayaan ina saaxiibadii la iga reebin sida uu warkii ugu soo gaaray Zeki Somali waxa lagu haystaa video uu duubay 2020kii haddaan ku leeyahay Somaliland waa gobol gobolada Soomaaliya ka mid ah Somaliland waa gobol kaasaan aaminsanahay kaas bro Firi nafta miya Somaliland waxay noqotay meel cunug yar oo TikToker oo fiyuusaysa uu go'aamiyo arinkeeda iyo maamulkeeda imaanshaheeda bixitaankeeda oo dhanba wadada loo maru wariyala war wallahi inaad imanayn oo billahi inaad imanayn oo tallahi inaad imanayn halkaad markii hore maxaa ka bedeli kartaa dhegeyso halkaad markii hore aaminsanayd aad walaal lahayd anigu kanaan aaminsanahay walaal joog dhulkaaga joog meel laga bariyay Zeki Somali oo naftirkaada waa qaldoontay oo aad iyo aad u qaldoontay waxa ku fiicneed mabda'gaadi hore in aad ku taagnaato oo aad dhahdid meeshaad joogto in uu Ilaahay ku barakayo ma ahayn in aad sidaa u calaacashid farsano ka hor kelmad aan ani afkeyga ka eri oo intaan live soo galay aan raali gareyn ka bixiyay oo aan eri shalay sidaas haa anaa eri waxaana ii geysay garaad xumadeeda marka aniga waa qaldanaa haddeertaan laakiin raali gareyn baan ka bixiyay haddaan soo noqdo arinkan haddaan hal iyo laba ka dhaho arinka Zeki Somali iyo maamulka Somaliland haddaan ka hormaro arinka Zeki Somali horta Zeki Somali yow fadlan waad ku qaldoontay in aad tiraahdo maamulka Somaliland waa maamul goboleed ka tirsan Soomaaliya sababtoo ah waxa tahay qof YouTuber social media ku jiro safarkiisu iska badan yahay bini'aadana tahay mar walba meel ayaad aadi kartaa oo wax kasdan daruuri ay ka soo gali kartaa Hargeysa mar haddii aad ogtahay in maamulka ay ka xanaaqayaan Somaliland waxay ka tirsantahay Soomaaliya in aad tiraahdo talinkaas ma ahayn inkastoo markii dambe raali gelin ka bixisay raali gelintii xitaa laga diiday oo laga aqbali waayay أنا واحد إلى غيرات كل ساعة سندس iyo عيدا ninkay dhahan nafsirkooda hadii saaxiibkooda la eriyay ama saaxiibkooda loo diiday ma ahayn nafsirkooda in ay baxaan oo Hargeysa ay aadaan maxaa yeelay saaxiibkooda la socday mar hadii la reebay iyagana waxa u fiican in ay iska haraan taas ayaa ah heerka saaxiibtinimo ama heerka raga aan soo noqdo maamulka Somaliland maanta mahankiini iyo dawladnimadiini iyo nidaamkiini in cunugan yarka u jeedaan TikTok uu ku qayliyo ama TikTok uu ka yiraahdo ma imaan kartid qof kale oo banaanka ka imaanay in uu saas ku dhaho sidaas ma hadda waxa rabtay in aad dhahdaan dawladnimad aad ku raadinayna oo aqoonsigan ku raadinayna oo adduunka inuu ictiraafaan rabnaa oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu Somaliland keenaa rabna ma taasaad naga galaysan Ilaahay ku dharshay maanta Somaliland ma waxaad ka xanaaqsan tihiin in la idin dhaho maamul ka tirsan Soomaaliya tihiin idinka oo og 1960 aad u dabaaldegtaan dadkii ugu horeeyay ee Hargeysa calanka Soomaaliya ka tahay idinka oo ah Somaliland maanta ma waxaad ka xanaaqsan tihiin 2020kii cunug yar oo TikToker in uu idin dhahay Somaliland waa maamul ka tirsan Soomaaliya asagoo qof asaagiisa kala challenge kula jiro ama lacag yar ku raadinayo
مساعات إليهن دولة نماذج أوديارتناهي مالكيانهاي الدنيا يعني اعتراف الرو وحيا كين ربنا بلا دلقات كين انت اسمه لإجهاي سوماليان مكويناني سيميا إن عنو جيرو فنانة آد حرتان عنو جيرو تيك توكر آد حرتان مديرو يوتيوبر آد حرتان مديرو ميلاha كسوق اللي آد حبسك أوتا حبتان اللي انت أسيسان goormaad ka weynaanaysaan oo dawladnimo iyo hankiin uu ka weynaana in calan yaroo Soomaali qof uu xirtay aad xabsiga u taxabtaan hankiina wuxuu la egyahay oo kaliya miya in Facebook iyo TikTok iyo YouTube oo kaliya in aad muraaqabeysaan oo aad fiirisaan oo wixii ka soo hadaba aad dhakab dhahdaan mise hankiina in adduunyada wax la qaybsataan oo ictiraafkiina aad reesaan oo waxyaabaha yar yar oo meelaha yar inaad كويناتام يا الدنيا داس عالم كاسعود أو حلقة قبستان الرسالة بترتو إنكو جاورا النجاي يا أقوياء كيني شيخيني شريف كيني جنيني جان كيني وحاسن عد كدلاي أو مقع كدلاي عنو قاير كا تيك توكر كا فيوس رايس كا أو إدهان إن باب كبرعو يا ما بولي ما غشين مقدشة لو حري قفل على يراه تيك توكره ما مقشين قف لان يرى يوتيوبر راح مقدشو لو خري ما مقشين قف فيسبوك راح مقدشو لو خري oo qadiyada ka soo horjeedo leeyahay ma maqasheen idinkuna maalin ilaahay geliyo fanaankiini oo ka soo bax Hargeysa oo Muqdisho imaado xabsiga dhigtiin tiktokerkiini inta imaado xabsiga dhigtiin dadkii dhan wada oo aagliseen war hadii baa meesha ay tahay meel yar oo maharada oo suuq yar oo wax soo galay wax ka baxay controlling ay tahay oo meel dawlad oo weyn oo waxaas yaryarootiga aan lagu mashquulin ay noo sheega meesha nin walba afkiisaas ka qabsaday hadii ay tahay meesha maamul dawliya oo adduunka waxa inuu la jaan qaadan rabo oo sida Soomaaliya iyo Djibouti iyo waxa dawladaha kale caalamka ay u dhisan haday tahay noo sheega maxay tahay dhucul yar oo TikTok wax ka soo sheegtay xabsiga u taxaabtiine maxaa idinku mashquulinayaa waxaas Soomaali masagaashanka meeqa laga sheega meeqa caaya laga sheega meeqa la dilaa meeqa wax laga qabtaa ani hadda meesha waxa iga soo baxay natiijo ah in dawladnimada ay sheeganaysaan ay fake tahay idinkana aad tihiin maamul ka tirsan Soomaaliya ama diida ama iska dhaaf wax idinka idin yaalo maxaa yeelay meeshiina waxay noqotay maharad yar oo hal qof u xiran wax soo galay iyo wax ka baxay controlling yihiin oo aan laga hadli karin dawlad matiin been ha isku sheegina dawlad matiin hadii aad dawlad ahaan leedeen cunug yaro TikTok ka soo hadlay wallahi oo billahi oo talay idin saameyn lahayn cunug yaro YouTuber saameyntiisa midin soo gaari lahayn sababtoo waxaas hankiin waa ka weyn yahay meel sare aad tiigsanaysaan wallahi billahi idin saameyn lahayn qof yaro Facebook ka soo caytamay Muqdisho markii la daacaynay meeqa qof oo Facebook raacadkooda meel fog u gaara oo siyaasiyiinta iska laalaaday oo Soomaalida ka iska laalaaday oo magaalada iska laalaaday yaa xiro yaa wax dhaho yaa handado meesha rabaanay maraan xorey ku maraan cunug yar oo TikTok joogo ama YouTube joogo ama Facebook joogo u dul qaadan lahayd markaas aad dawladnimo sheeganaysaan naga taga baxaniyo